maalinka berri ah oo ku beegan 14 Juun sanadka 2026 waxaa guud ahaan deegaanada Galmudug looga dareerayaa imtixaanka dowladda ee fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2025-2026. Imtixaankan ayaa waxaa u fariisanaya kumanaan arday ku kala sugan degmooyinka iyo magaalooyinka Galmudug kuwaas oo soo dhamaystay waxbarashada dugsiga dhexe. Magaalada Gurceel ayaa sanadkan hogaaminaysa tirada ardayda imtixaanka ku galaysa magaalooyinka Galmudug iyadoo ay ku galayaan ku dhawaad 1500 oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Sidoo kale tirada ardayda Gurceel ee u fadhiisanaysa imtixaanka ayaa ka badan guud ahaanba tirada ardayda gobolka Mudug oo dhan, taas oo noqonaysa astaan muujinaysa horumarka waxbarasho ee degmada. Tani waxa ay Gurceel ka dhigaysaa magaalada ardayda ugu badan ay ka galayaan exaamka fasalka 8aad ee wasaaradda waxbarashada Galmudug ay qaadayso, iyadoo sidoo kale deegaanada kale ee Galmudug ay si weyn uga qayb qaadanayaan imtixaanka. Maamulka waxbarashada Galmudug ayaa sheegay in si wanaagsan loo diyaariyay goobihii imtixaanka iyo amniga si ardaydu ay ugu gudbaan imtixaanka si habsami leh.